intii aan dooran lahayn inaan samayno meel lagu tababaro shaqaalihiin oo kaliya waxaan ka doorbidnay inaan samayno akaademiyad lagu tababaro shaqaalihiin haday noqoto shaqaalaha muassasaadka kale ee magaalada ka shaqeeya haday noqoto على مستوى مجالده gobolka iyo dalka Akademiyada BCBs for Professional Trading waxay daafurtay program English kaasoo loogu talagalay in kor loogu qaado awoodda adeegsiga luqadda Ingiriiska ay u leedahay xirfadlayaasha tacliintu taasoo socon doonta muddo 3 bilood ah iyadoo ay noqon doonto dufcadda koobaad ee qaadan doonta tababarka hawlwadeennada ka hawlgala muassasada BCBs ee magaalada Boorama iyadoo ayna meesha ka maqnayn barashada luqadda si guud waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin kooban ka bixiyay asaasaha BCBs mudane Maxamed Ducaale Good bilowgeedii hore iyo waxay higsanaysay waxa lagu bilaabay iskuul yar oo ah nursery magaca hore wuxuu ahaa BCB Nursery School intermediate baa iskuulka ku biiray wuxuu noqday BCB Nursery and Primary School waxaa ku biiray barnaamijka ilmaha baahida qaba special need halkaa markuu sii marayay waxaa la yidhi markaa magacii waa la bedelo waa la yar weyneeyo waxaa laga dhigay muassasada BCB muassasadu markaa waxay ka kooban tahay nursery iskuulka kale ee ta'hiilka dhaqancinta carruurta baahida qabta iyo trainingkan oo ah professional training oo iyadna baahi weyn loo qabo marka intaasoo qaybood baa hadda magacana kulmisanaya caawa halkan waxaan u fadhinaa markaa trainingkii labaad mid baa ka horreeyey kaasoo ahaa in la train gareeyo shaqaalaha ka shaqeynaya ama ka shaqeyn doona ilmaha baahida qaba iskuulkaasoo hadda aada u ballaaranay oo soconaya hadda bilowday kanna wuxuu daba socdaa isla trainingka oo ah in kor loo qaado xirfadda macallimiinta iyo shaqaalaha BCB higsadkuna waxa weeye inuu noqdo muassasa caalamiya iskuul caalamiya inuu noqdo sidaa awgeed wuxuu u baahday markaa in trainingka la furo labada noocba kuwa kalena way daba socon doonaan oo isma taagayo maxaa loo furay haddii aan isweydiino luqadda Ingiriiska dadku jaamacaday ka wada baxeen iskuulla secondary ay ka soo baxeen waxay wax ku baranayaan wuxuu ahaa luqadda Ingiriiska maxaa hadda staafka dib loogu celinayaa waxaa dib loogu celinayaa in la horumariyo luqaddii hadda qaabka wax loo dhigo luqadda Ingiriiska ilmaha loogu bilaabo ama iskuullada looga dhigo waa taqliidi waa mid laga tegay weeye waa alphabetkii oo la dhigayo weeye ABC weeye waxa loogu bilaabo waa tii annaga wax lanagu baray haddaba wuxuu way isbedeleen waxa hadda loo guuray halka alphabetka in soundkoodii la dhigo codkoodii la dhigo kaa horta in staafka lagu wada tababaro waa awalkeeda loona gudbiyo bulshada inteeda kale iyo iskuullada intooda kale waa qaab casri weyn sidoo kale hadalka waxa ka daba qaatay maamulka English Program Trading mudane Ramadaan maamulka guud ee muassasada Dr. Xamdi Cali Ciise iyo sidoo kale Zainab Cumar waxaanay hadaladooda u dhignaayeen sidan. So today we have a presentation about the intensive course for teachers, and this was an idea that was suggested by members of staff because we saw a need of empowering our teachers with the correct content of knowledge in order to help our children to study properly. So that was where the idea was born.
We developed the curriculum. Me and the director and other instructor that will be with us, and it's intensive. It is not English studying that normally happens around. الكورس بتاع اللغة الإنجليزية. وقبل ما أتكلم عن الكورس بتاع اللغة الإنجليزية داير أنبه لحاجة بسيطة جدا، يمكن دكتور دعالي كان بيتكلم عنها دائما، إن إحنا تحولنا من مجرد مدرسة أو مدرسة وروضة وغيره، تحولنا إلى مؤسسة. وبالتالي واحدة من رؤية المؤسسة أو الرؤية المستقبلية إنه لازم يكون عندنا قسم للتدريب والتطوير. لكن إحنا كان رؤيتنا أوسع من كده، ما مجرد إنه مؤسسة تخدم العاملين والموظفين والمعلمين الموجودين فيها فقط، لا، كان عندنا هم أكبر من كده، إنه إحنا نعمل من أجل المؤسسة حقتنا ومن أجل بورما كمدينة نحن موجودين فيها ومن أجل صومالي لاند عامة. دكتور فبروري waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb qaatay ama kasoo qayb galo barnaamijkan furitaanka tababarka Englishka ee mukathafka waxa la sheegaa la ururiyo saacado badan oo la isku koobay, yani mesela wax lagu dhigin lahaa hal sanad ina 3 bilood lagu soo koobay. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in badan Ustaad Maxamed Ducaale uu ka hadlaa inaan ka soo bilowno meel aad u hooseysa ama meel aad u kooban oo ahayd KG, maantana aan maranayna isku bedelnay iskuul ka nimidna oo isku bedelay maxay muassasa. idan muassasa walba waxyaabaha la gaarto muassasada iskuulka ka duwantay waxay tahay muassasadu waxay leedahay shaqaale badan oo kala duwan soo maaha oo qaybo kala duwan leh. Sidaas darteed muassasadu waxay leedahay qayb tababar sideedaba. dad muassasa maqasho waa inay leedahay qayb ku tababarto shaqaalaheeda oo xirfadooda kor ugu qaado. idan wuxuu yiri intii aan dooran lahayn inaan sameeyno meel lagu tababaro shaqaalaheena oo kaliya, waxaan ka doorbidnay inaan sameeyno akaademiyad lagu tababaro shaqaalaheena haday noqoto shaqaalaha muassasaadka kale ee magaalada ka shaqeeya haday noqoto على مستوى magaalada gobolka iyo dalka intaba. idan wuxuu waxaan door bidnay intaan sameyn lahayn meel aan ku horumarno kaliya shaqaalaheena inaan sameeyno akaademiyada ku horumarno dhammaan bulshadeena qaybaheeda kala duwan iyo muassasaadkooda kala duwan. warbaahinta Cishqa TV Boorama.